iftiinka iyo korontada waa laf-dhabarta nolosha casriga ah. Waxay iftiin geliyaan guryaha, waxay dhaqaajiyaan qalabkaan isticmaalno, waxayna qayb muhiim ah ka yihiin horumarka magaalooyinka. Laakiin daha gadaashiisa waxaa ku dhuumanaya halis dad badan aysan dareensaneen. Inta badan waxaan maqalnaa warar ku saabsan guryo gubtay, suuqyo basbeelay ama dad ay korontadu dishay, balse dhibaatadu ma ahan korontada lafteeda ee waa habka loo geliyay. Si aan bulshada ugu soo gudbino sababaha keena in uu dabka kaco guryaha, waxaan iskaashanay Ustaad Cabdalla Maye oo ah khabiir ku takhasusay korontada iyo nidaamyada casriga ah ee teknoolajiyada, kana soo shaqeeyay dalka dibadiisa. Waxaan booqnay 2 guri oo ku yaala Muqdisho. Mid ka mid ah waxaa korontada loo geliyay si nidaamsan oo badqab leh, halka kan kalena loo maray qaab qaldan oo halis ah. Si aan xaqiiqda dhabta u ogaano, waxaan galnay gidaarada gadaashooda. Waxaan eegnay meelaha indhaha aysan qaban, waxaana soo helnay xaqiiqooyin naxdin leh. korontooyinkan meesha uu marayo kalarka oo la isticmaalay waxa u badan yellow oo loo isticmaalayo teerax. marka meesha oo maaragtay korontooyinka oo la geliyay caagaha oo maaragtay pipe oo la geliyay korontooyinka runtii aad u yaryay maadaama apartmentiga aad u weyn yahay. waxaa loogu talagalay duct oo weyn oo maaragtay oo la geliyo kulli waa isdhexmarooyin internetka oo fiberka ahay networkii iyo korontooyinkii waa isdhexmarooyin. Maxaa sababa in guri si lama filaan ah uu dab u qabsado? Mid ka mid ah sababaha ugu waaweyn waa kuleelka ka dhasha fiilooyinka sida khaldan la isugu geeyay. Kani waa god loo yaqaano cilmi ahaan junction box. Waa meesha loogu talagalay in fiilooyinka ay si nidaamsan isku dhaafaan. balse halkan waxaad arkaysaa in injineerkii uu god aad u yar isticmaalay isagoo ku cadaadiyay fiilooyin aad u tiro badan. waxaan imaan dabaqooda imaanay junk boxing meesha oo u sameeyeen aad u yaryahay. hadda fiilooyinkan hadda markaasaan aan u taabto runtii tight way aad maartay ciriiri ay ugu jirtaa fiilooyinkan wax kale ma galayso. waxyaalahan oo kale adduunyada caalamka laga tagay. cilmiga korontada marka dabka uu ku dhex socdo fiiladu waa ay kululaataa. haddii fiilooyinka ay ku jiraan meel ciriiri ah oo aysan hawo iyo neefsasho ku filan aysan ka helaynin, waxay dhalaaliyaan caaga ama xuubka ku dahaaran fiilada. markuu caaga dhalaalo, waxaa istaabanaya fiilooyinka. kadib waxaa dhasha wax loo yaqaano short circuit. waa dhimbil xoogan, waana halka dabka intiisi badan uu ka bilowdo. waxa uu yaa ku badan aragnay consumer boxiga hadda aan aragnay aad u yar yahay runtii. mid kale waxa kale aan aragnay runtii oo ayadan oo xooga cabsi meeshan hadda fiirisid korkaan fiilooyinkii dhan oo neutrkii oo dhan meeshan kab ay ka geliyeen ma loogu talagelin. waxaa loogu talagalay fiilada toos presska ka imaanayo iyo nalalka imaanayo toos ina oo ay u soo gasho consumer boxiga ay u soo gasho. eeg sawirka naxdinta leh. halkan waxaad ku arkaysaa fiilooyin jaale iyo cagaar ah oo ah kuwii nolosha badbaadinaya, oo inta la isugu geeyay dushna loogu qoray xarafka N oo u taagan neutral. sawirkan kalena waa ka daro dibi dhal. waa sanduuq qaybiyaha distribution board oo dhammaan fiilooyinkooda jira ay yihiin isku hal midab oo jaale ah. tani waa dambi farsamo. haddii injineer kale uu berita yimaado si uu cilad u bixiyo, sidee ay u kala garanayaa fiilada dilaaga ah iyo tan nabadgelyada ah? haddii qalabka meeshan lagu xiro uu cilidoobo, ma jirto meel ay korontada u baxsato. qofkii taabta ayay si toos ah u qabanaysaa. si aan idin tusino farqiga u dhexeeyo shaqo fowdo ah iyo mid xirfad sare leh, waxaan booqanay guri labaad oo loo dhisay si waafaqsan shuruucda caalamiga ah ee korontada. haatan waxaan soo booqanay guri cusub oo nashadiis korontooyinkiisii sax oo loo sameeyey. qaabkii loo dhigay aan rabaa inaan hadda aan tuso. nakeen bal indhahaaga ku dooji sawirkan. kani waa sanduuq koronto oo weyn oo aad u nidaamsan, saacadihiisii la isma dul saarin, meel walbana waxa ay leedahay tilmaam cad. waxa ugu muhiimsan, gurigan waxaa ku rakiban qalabka RCD oo ah qalab si degdeg ah u damiya korontada marka uu dareemo khatar ama koronto khaldan ay soo gasho guriga. runtii korontooyinkan meeshan waasaca loo sameeyey, meel adig space laga soo dhex saaray. korontadan inta ka baxayso oo saacadda ka baxayso ilaa iyo guriga ay ka galayso hal kab kuma jiro. ciladna kama imaan karo. macnaha haddii ay problem ama cilad ay dhacdo ama dab ay dhacdo, korontadan kalageedii apartmentigaas isku ekaana. daa fiirisid main switchkii oo laga daminaa loo sameeyey. waxaa kaloo loogu daray hoos RCD loogu daray. RCD-gan wax ka soo dhaco hadda dab ay ka dhacdo, haddii fiilooyinka xoog istaabtaan iyo intii halkan ilaa iyo apartmentii ay ka aadayso, haddii cilad yar ay imaado tan hoose isdaminaysa. hadda waxaa imaanay daawaqa koowaad inaan tuso ductiga qaabkii spaceka ay u sameeyeen weynaantiis intuu la eg yahay iyo taa shalay aan soo aragnay. fiilooyinka qaabkan oo hadda ay u sameeyeen waa kala baxsan yahay. mid walba waxay aadaysaa apartmentiga, toosay u aadaysaa guriga.
marka ma loo ribtoonayo anaga as solar facility ahaan waa imaanaynaa wixii oo cilad jirto isla markii waxa way fiil arab inaan bedelno aadan ugu sahlan tahay dab kasto wax kasto ka dhaco waa sahlan tahay maarsa lagu sameeyo wax walbana lagu dari karaa mustaqbalka hadda waxaan tijaabinaynaa faa'iidooyinka runtii ay leedahay RCD faa'iidooyin badan ay leedahay ma soo koobi karno waxyaalaha RCD aad loo isticmaalo waxaa kamid ah qaf koronto qabanayso isla markii uu isdamina taas darteedii waxaan haasanaa system aan ku ogaanayno RCD-gan inay shaqaynayso in kale tan marka waxay test ay ku sameynaysaa koronto inay saxan tahay everything ay leedahay tera testerka hadda aan gelinay inspection teamka aad u isticmaalaan marka systemku wuxuu noo sheegayo in maaragtay oo ay saxan tahay korontada hadda way daaran tahay maasi yar uu ku sameynaa maasi yar uu ku furaa macnaha wuxuu ka dhigaa khaf oo koronto qabatay oo kale uu ka dhigaa testerka uu sameynayo haddaan taawano testing buttonkan oo maaragtay oo testing haddaan taawano aan riixno automatically waxaa la rabaa systemka in is isdamiyo marka haddaa fiirisid system hadda waa dansan yahay RCD-ga automatically waa off waay magaalada muqdisho aan joognaa dhismihii waa isku mid guryihii dadkii oo Soomaaliya dhisooyin laakiin waxay la baldugan yahay waxa way farsamada waay qaabka oo gurigan loo farsameeyay waa international standard korontooyinka loo dhigay waa international standard qaybta farsamada as a facility solar facility ahaan aad ay ugu fududahay saano kale marka wax loo sameeyo marka wixii waa la sameeyaa dhismihiina waa la sameeyaa laakiin farsamadii ay kala duwan yihiin marka waxaan ku dardaarmaa injineerada iyo korontistaha in si sax wax inay u sameeyaan oo farsamad sax oo standard ay inay raacaan. Assalamu alaikum.